waxaa jirta xilliga xorriyadda la qaadanayay hadal laga soo wariyo garaad cali jaamac oo ah inuu markaa isagu doonayo ama wato fikir ah in dib loo dhigo midnimada oo muddo dhowr bilood ama 6 bilood oo kale dib loogu dhigo marka hadalkaas see looga qaadan karaa garaadka maadaama garaadku beeshu ka soo jeeday markii hore ay ahayd beel midnimada Soomaaliya ku dhigan oo u soo dagaalantay oo soo dhimatay isagu ahaa garaad maxay ahayd Soomaaliyeed Soomaalidu markaa isu soo hiloobaysay oo labada qof ee Soomaaliya sarka ay markaa aad isu jeclaayeen oo la doonayay in Soomaaliya la mideeyo marka waxa soo dhan oo ku gadaaman garaadka sidee uu hadalkan uga yimi ma se loo oran karaa ama sax ma yahay hadalkaasi oo ma xaqiiqo ma yahay in garaadku hadalka yiri arrinkaas ku saabsan hadalka garaad cali wax badan baan in su'aashaas dadka gobolada waqooyi jooga laga shaafiyo wax badan baan doonayay inaan ka jawaabo waxaan anu jeclaan lahaana hadalkaas in iclaanka dadka Soomaalida gaar ahaan gobolada waqooyi jawaabta aan ka bixiyo in laga sii daayaan jecla waata waxa jirta carabta waxay tiraahdaa dadka ujeedooyinka hadalka kale hadal qof si uu yiri baa jira oo si kale loo turjumi karo oo marka qof baa hadalka inuu sida u turjumo dantiisa gelisa kadibna hadalka buu fabrikaynaya markaas carabtu waxay tiraahdaa waa baayicu kalimatul mufabraka baayicu kalimatul mufabraka eraya la sameeyay dadka baayic mushtara eraan garaad cali hadda goon goosadka lagaga baayic mushtara arrinka waxa kama jiraan laakiin arrin kale oo dahalis carabtu waxay tiraahdaa dahalis ويلا هوس مريا وأن سطحه أو صابحين وأن لتسألين حتى هذا إن سطحه الله صاره بهذا الكسر يخلدن وجبع مشترى أنا جمعها عدة تير هذا الكاس وحقيقة الشيء كسا كوي معلنتا الصومالود وحنا وانا الرصيدين وحنا وانا الدوكيمنت جرين وحنا وانا القرين كوي معلنتا ديسيشن ميكرز ككعها هذا الكجراد عليه xisbiyada waqooyi ku wada jiray ba afkooda ka qirtay sida loo oranayo hadalka waa si qaldan haday sida tahay garaadku in xor la noqdo oo gumaysi gacantiisa lagu sii jiro ingiriis lagu sii jiro marnaba kama suuroobin deegaanku ka soo jeedana waa deegaanka halganka soo galay oo hadii la ku rooyahay ku soo dagaalamay xorriyadda ingiriiska dadkii xorriyadda ingiriis in ingiriis laga xorroobo keenayna waa dadkiisa weey garaadku markaa dadka oranaya wuxuu yiri xorniyadii ba loo dhigo waa dambi bay ka galeen way qaldan yihiin absolutely way qaldan in sida loo yiraahdana waa ceeb weeyaan saddex xisbi baa jirtay saanidi USB iyo SNL iyo NUF saddex xisbi dooday kala qabeen doodo SNL way kala jabnayd baataan nidi NUFna aqlabiyad ma haysan SNL waxay ku kala jabnayd aan la midoono koonfur iyo aynan la midoobi NUFna waxay lahayd aynu 10 sano hadalka Ingiriiska maqal oo 10 sano oo Ingiriis soo jeediyay aynu xorriyadda koonfureed ka daba marno laakiin aan la midoono saasuu lahaa qolada NUF qolada USB-na waxay lahayd ma hore aan ula midoono koonfurta labada garab had watan laha aqlabiyadii bay rajaxeen midnimada gobolada wax loo yaqaan waqooyi waxa rajaxay USB-da oo waxay raaceen garabkii Suldaan Diiriye ee lahayd xorriyadda biduun shuruud aynu koonfur ku gallo marka garabka garxajis iyo gobolada dadka xisbiga USB ku jira waqti qaar baanan isaaqiska qora oo marka dad aqlabiyada iyo qolada garxajis aqlabiyadu qoys soo noqonayaan ba waxay lahaayeen xorriyadda aynu si dhaxsale ula midowno aqlabiyadii nimankaas awti qolada NUF
iyo dad aan badnayn oo SNL garabkan aan garxajka ahayn oo beesha Muuse bixi ka soo jeedaan waxay lahaayeen nimanka yeena la midoobi maxaan ku iraahdaa sideedaba qaarna waxay lahaayeen sideedu yeena la midoobi Michael Meerana wuxuu lahaa ma yaanu 10 sano dib u dhigno laakiin aan la midoona markan akhiran annagu bisil fikirka Ingiriiska socday arrimo badan oo xasaasi ah meesha yilay haddii Soomaalidu 10 sano ay kala dib dhici lahayd waxa dhici lahayd kala dalna noqon lahayd laba arrimood baa la isku hayay masiirka midnimada Soomaalidu su'aal bay ahayd masaalixduna su'aal bay ahayd masiirka ummadda Soomaalida qoladan aqlabiyadda ahi waxay rabeen hore in loo dedejiyo masaalixduna dhinac bay ahaydoo qoladan NUF waxa la qoladan USB da iyo SNL garabkan Suldaan Diiriye masaalixda iyaga isku waday masaalixda koonfur laga helayo iyaga isku waday maadaama midnimadii loo ordayaan dawladda Ingiriiska markii dambe ay aragtay sida loo kala qaybsan yahay guddi bay dhistay waxay tiri saddexdiina xisbi qolo iyo shan soo saar si aad uga doodaan ma 10 sano dib u dhigasaan ma biduun shuruud iyo degdeg baad kula midoobaysaan ma dawlad gaar ah noqonaysaa markii ina cigaal oo ra'iisul wasaaraha dawladda ganacsiga loo magacaabay oo warkii u keenay oo governorka ku yiri wuxuu yiri guddi 5 iyo 10 sameeyay 3 min 5 qoladii aqlabiyadda ahayd garxajka iyo dadka nan isaaqiska ah oo ay ugu firfircoon yihiin dadka gobolada ee bari oo gobolada bari wali waxa ka soo ifaya nacaybka Ingiriiska oo buuq baa ka jira oo waa dad daraawish wali oo nacayb Ingiriisku afu ka saaran yahay oo nimanka daraawishta haba nool waxay yiraahdeen guddiba dhisan mayno waanu fahmanaa waanu dirba Ingiriisna wareeriyo wax ka baqay galmeen guddiga dawladda Ingiriiska habeenkii uu governorkii ku celiyay iyo xisbiyadiiba warkii la soo wada gaarsiiyay waxay yiraahdeen qoladii SNL garabkii majority-ga ahaa waa niman Ingiriisku wata wayna ahayd niman Ingiriis wax ku shubanaya weeye niman kale guddi 5 iyo 10 hala sameeyo saddexda xisbiya ma aqbalano anagu guddiba ka qayb galmayno waxa weeye waan la codeynayaa in waqooyiga Soomaaliya biduun qayd oo shardi midnimada Soomaaliya lagu sameeyo Ingiriisku wuxuu masaas ahaa in cigaal wuxuu warkiiba ku celiyay qolada NUF oo markii horeba hal kursi heshay baa xagga masaalixda ugu rajo dareed macna inaan kursi ka heli karin koonfurta wax weyn ka heli karin markii horeba rajo iyadoo waqooyi la joogaa dadka qaar kuraas isku wadiyeen garaadku wuxuu yiri dad Soomaaliyeed oo gumaysiga ina kala haystay oo kala duwan yahay oo kala administration iyo siyaasad duwan yahay oo kala aragti duwan yahay yeynu isu tageynaa oo aynu kala xidhnay waxaynu u baahannahay inaynu wax kala qoranno inagoo waqooyi iyo qolada kale oo koonfura inaynu wax kala qoranno wax dhexe ku heshiino waxaasi ay noqdaan wax inoo shaqeeyo oo mustaqbalka dhowna aynu ka faa'iidno oo ku wada noolaano sidaas uu garaadka hadalkiisu ahaa odayga in cigaal bay qolada NUF la shirtay xaaji Cabdiwaraaba afkiisa ka yiri qof ka soo taariikhda akhriyana hadalku inuu sax yahay uu garanay mar allaale markii la yiraahdo guddiga ka qayb galmayno hatta xiwaarka ka galmayno hadaan SNL qoladii Suldaan Diiriye iyo dadkii nan isaaqiska oo aqlabiyadii that's aqlabiya inha aqlabiya saaxiqa waxay yiraahdeen buku NUF 3 ra'iisul wasaare mar hadii ay leeyihiin qoladan USB da nimankan ee bari ka yimid suufiyaasha ah iyo qolada nacaayasa wuxuu yiri daacad nafta noo keenay odayaasha uqaashaha iyo qolada NUF taha iyo wuxuu yiri niman suufiyaal oo bilaabay ahaayeen wuxuu yiri nafta noo keenay darqada hargeysan ka markar weyn Ingiriis baa laga soo urinayay war Ingiriis baa laga soo urinayay waxay yiraahdeen iyaga marka kuraasta isku wada hadaad cigaal tahay biduun qayd oo shardi oo golo koonfur inuu geey
koonfur haddaad cigaal tahay biduunu qayd oo shardi nuga si kuraas iyana ay u waayaan halkaasaa NUF go'aansatay garaad cali oo isku waday inuu wasiir arrimo dabadeed noqon karayo si loo ilaaliyo buugga aamil wisba ka qoran tahay inuu foreign minister isku waday garaad cali si markaa midnimada loo ilaaliyo هذا بيشن u dagaalantay midnimada ilaa ina Cabdullah Xasan ilaa Daraawish ee hadana xuduuda bari baawarka ugu badan ku haysata askariga aan khasar ugu jiri karin maadaama garad waxa cid sida kaliya loo fikri karaa inay tahay marka laga hadlayo dawladuhu way leeyihiin territorial integrity is hayso dhuleed territorial integrity-gana cid kaliya soo karta waa isaga inuu qaranka Soomaaliya haysto baa fahmay in meesha qoladani doonayso NUF iyo SNL inta laga aqlabiyad batay inay iyaga kuraas waasiinayaan bay fahmay markaasuu yiri waryaaraheen markuu arkay in la yiri warbaasho ninayuus waxa way soo xukuumada cadiyo ama ku cunay ama ku ciideeyay hadalka wasiirka arrimaha dibadda inuu foreign ministerka isku wada garaad cali buug aaminsan qoranta markuu sheekadii qoladii SNL isu gashay waxay nimanku leeyihiin biduun qad oo shardi ba qoladan SNL waxay tiri nimanku way inaga ina xumeynayaan buug garaad cali wuxuu intuu hadlay war 6 bilood dumarka umusha aan 6 bilood baa loo kaadiyay wax ma u kaadinaa hadalkaas ku soo baxay kursi uu isleeyahay aad koonfur ka difaacatid buu ku yiri war 6 bilood ma u yar kaadinaa ilaahay baa garanaya kadibna nin baa quraarad ku soo tuuro inuu ahaa qoladii mu'aamarada wadatay ninna yuusuf waxba helin cadiyo ama garaad cali iyo suldaan diiriyo iyo nimankan qolada garxadska yanaysa meesha xog ku helin anigu banta ma jeclina sheego inuu groupka ahaa iyo inuu nin iska xamaasadaysan ahaa oo balaadan la isku hayo aan dareemin ma ahaan la yaa garaad wuxuu ku soo tuuray dhar uu ku soo tuuray jooji warka yaa yaa garaad marka waa kala garan mayno inuu ahaa qoladii lahayd hadas la cadaab muto oo yiriidin boo soo diideen maxad maanta anaga 6 bilood nooladahay markii la guddiyo hala sanad taad diidayeen iyo inuu ahaa niman waxan fahansaneen dadka uu xorriyada isaga jibeysanaya midnimada inuu ahaa ma garanayo laakiin nin baa quraarad ku soo tuuray warka xaqiiqada ah waa saa wixii kale waa been ومال المورن إيو ما كيك مهاري ومال نيلا هاي ما شيء من مال هاشي من مال بيقي ما تودو عندني ولا مارسي عن مال هاشي عندني كلها ماركسي المال هاشي المال